waxa uu kala soo dhaxbaxay gabdhihiisa oo ay la ciyaaraysay. Waa sheekada Havan oo ah gabar 7 jir ah oo lagula kacay fal kufsi ah kaas oo ka dhacay dalka Itoobiya. Intaan u gudagalina sheekadan haddii ay tahay markii kugu horeyso aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto maasanid. Havan waa gabar yar oo 7 jir ah. Sheekadeeda waxa ay qabsatay caalamka oo idil iyadoo adduunkii oo dhan uu si isku mid ah uga hadlayo. Waxaana gabadhan yar loo raadinayaa cadaalad sababtoo ah waxa lagula kacay kufsi sidoo kalena waa la dilay waliba si qaab daran ayaa loo dilay. Gabadhan yar ee 7 jirka ah ee lagu magacaabo Havan waxa sidaas u galay waa nin ay ku nooleedahay gurigiisa. Havan hooyadeeda waa carmal oo iyada kaliya ay haysatay. Waana dhakhtarada waxay u shaqo tagi jirtay subax kasta mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada ay deganeed. Waxay gabadheeda yar ee Havan ay ugu tagi jirtay qoyska ay nooleeda maadaama ay ahaayeen dad cunno meel ku wada cuni jiray oo ceesh wadaag ah. Marnaba kama aysan shakin in falkan sidan u qaabka daran uu ku kici doono aabaha qoyska oo dhan. Falkii kufsiga ahaa ee lagula kacay Havan ayaa u dhacay maalin maalmaha ka mid ah hooyadeeda oo shaqo ku maqan. Gabadhii guriga lagu qabay oo deganeedna ay sidoo kale ka daba baxday oo magaalada ay alaab u doonatay ayaa waxa oo iyada ay la ciyaarayso gabdho kale oo guriga laga dhalay uu aabihii qoyska kala soo dhaxbaxay gabdhihiisa. Waxaana soo gashtay guriga isaga oo kula kacay fal kufsi ah. Afka ayuu carro uga guray si aysan u qaylin oo dhawaqeeda aan dariska loogu maqal. Intaasi kuma ekeenine markii uu kufsaday waxa uu isku dayay in uu dilo maadaama uu ka cararayay in ceeb uu kala kulmo falkan kufsiga ah oo uu geystay gabadhan saqiirka ahayd. Tacadigan uu geystay ninkan ayaa sidoo kale waxa markii dambe qayb kala noqday in gabadhan la jirdilo sidoo kalena la isku dayo in DNA-giisa laga tirtiro islaantii uu isaga u qabay oo ahayd hooyada qoyskan oo ilmaha badan ah looga tagi jiray. Sidoo kale waxaa la sheegay in falkan ay iyaduna qayb ku lahayd ninkan falkan geystay gabar la dhalatay. Waxay isku dayeen in ay ka tirtiraan DNA-giisa waxayna sameeyeen wax kasta oo ay ugu tirtiri karaan. Waa ay jarjareen gabadha yar oo minka ay dibadda ka keeneen iyagoo isku dayaya in ay DNA-giisa ka dhaqaan. Havan hooyadeeda ayaa inanteeda yar cadaalad u doonaysa. Waxayna sheegtay in ninkan maxkamadda la keeno oo laga argudo falkii uu geystay gabadheeda maxkamadna loo soo saaro. Falkan waxa uu ka dhacay dalka Itoobiya gaar ahaan kilinka Amxaarada magaalo lagu magacaabo Bahadar. Ninka falkan geystay ayaa dadka qaar waxa ay sheegayaan in uu ahaa sarkaal ka tirsan ciidanka militariga ee dalkaasi halka dadka qaarna ay sheegayaan in uu ahaa nin aan askari ahayn oo shaqooyin kale oo caadi ah qabta. Ninkan ayaa waxa la sheegay in markii hore la xiray hase yeeshee markii dambe la sii daayay taas oo ay ka xumaadeen dadka ku dhaqan gobolka Amxaarada ee dalka Itoobiya. Bulshada Soomaaliyeed ayaa markii ay arkeen kiiskan qaabka u dhacay waxa ay sheegeen in uu la mid yahay falkii lagula kacay gabadhii yareed ee saqiirka ahayd ee lagu magacaabayay Caaisha Ilyas.